kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn dagaal culus oo ka soconaya gobolka ka tirsan dalka Chad iyo dadkii ugu badnaa oo ku dhintay halkaasi hubka ugu weyn ee laga hortagi karo xanuunka coronavirus ama faafaha daran ee sida weyn u waxyeeleynaya caalamka oo la ogaaday hay'adda lacagta adduunka ee IMF-na waxa ay ku dhawaaqday in dhaqaale daradii ugu weyneed adduunka ay soo wajahayso iyadoo 2 bilood kadib go'aankeedii hore bedeshay Sacuudiga iyo Ruushka oo ugu dambeyntii heshiis ku dhawaaqay kadib cadaadiskii Mareykanka waa 10 Abriil waa 2020 waa Jimce waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararkii ugu dambeeyay dunida daawada shaqeemaha aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa cusbitaalka qaybta xaaladda adag ama xaaladda dadka culus ka soo saaray Mr. Johnson ayaa la sheegay in ay u shaqeysay dawooyinkii lagu siiyay mishiinada neefta caawiya iyo kuwa kale ee markaas laga caawinayay iyo waliba waxa la dawooyinkii lagu siiyay qaybta daryeelka xaaladda culus ee dadka haatan waxa la keenay ayaa la yiri qaybta wararka dadka caadi loo jeefiyo isagoo marxaladiisa la tacaalay balse waxa la sheegay inuu ku jiro wajigii u horeeyay wax lagu sifeeyay soo kabashada ra'iisul wasaaraha ee xanuunka markaas haleelay Mr. Johnson ayaa maalintii axad la dhigay cusbitaalka 10 maalmood kadib kolkii uu xanuunkaasi qabay ama xanuunka faafaha daran ee COVID-19 uu soo ritay Mr. Johnson waa 55 jir waxaana uu sheegay in uu la tacaalay xanuunka iyadoo goorsii horeysana xogihiisa arrimaha dibadda Dominic Raab oo loo sii magacaabay ama sii noqday inuu sii ku xigeeneeyo oo dalka sii maamulo uu ku tilmaamay inuu yahay dagaalyahan hadalka Britain ayaa la sheegay in dhakhaatiirta iyo dadka caafimaadka arrimaha caafimaadka ka shaqeynaya ay aad ugu leeanayaan ayadoo horeyna loogu digay ama loogu canaantay ra'iisul wasaaraha laftiisa iyo dawladdiisa inaysan waxba u qabanaynin dadka ka shaqeeya goobaha caafimaadka marka ay tahay in ayaga la badbaadiyo ama qalabka dhinaca badbaadada iyo difaaca loo xiro halkaad kala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal ee dagaal aad u culus oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconayay gobolka harada leh ee dalka Chad ee xuduudda ku yaala ayaa la sheegay in dadkii ugu badnaa ku dhinteen afayeen ku hadlay ciidanka dalkaasi Chad oo la yiraahdo Colonel Asim Bermadouda Agona oo la hadlayay wakaalada wararka FBI ayaa wuxuu sheegay in dagaal halkaas ka soconayay 2 toddobaad uu ahaa mid gacanta la isla tagay kaasoo u dhaxeeyay ciidamada militariga dalkaasi Chad iyo kooxda Boko Haram waxa la sheegay in halkaas wuxuu sheegay Colonelku inuu halkaas ay ku dhinteen 1,000 askari oo ka tirsan Boko Haram kuwaas oo sheegay inay cagta mariyeen ciidanka dalka 52 askari ayaa nagaga shahiiday ayuu howlgalka aanu bilownay koob bishii hore Maarso kaasoo ku dhawaad hadeerto muddo 10 maalmood ka badan soconayay ayuu sheegay wuxuu sheegay in ay tan tahay jawaab celis loo diray wuxuu ku sifeeyay koox qowleysata waxaanu burburinay konton doonyood oo ay ku dagaalamayeen iyo waliba qalabkii u saarnaa ayuu yiri Colonelku Colonel Asim waxa intaas ku daray in dagaalka kooxda Boko Haram ay kaga hortageen uu yahay howlgalkii loogu magac daray the Operation of Bahama Anger oo ahaa markaasi caradii howlgalka caradii Bahama waa deegaankii ay 23 bishii Maarso ku weerareen Boko Haram ciidanka Chad markaana ay ku dileen 92 askari oo ciidanka dalka Chad oo dalalka saaxil ah kan ugu tutudharoon ugu awood badan ayaa madaxweynaha dalkaasi Idris Deby wuxuu ku amray goor hore inay qaadaan wuxuu ku sifeeyay wax iska caabin iyo waliba wuxuu ugu yeeray baabin kooxda haraadiga iyo wixii markaasi aaga ka jooga taasina waxa ay soo dadisay in ciidanka lagu fasaxo aagaasi oo dhan ayadoo gobolka harada ah ku yaala ee xuduudda saaran ee dalkaasi Chadna laga dhigay goob dagaal taasoo markaasi loo fasaxay militariga in ay cagta mariyaan wararka ugu dambeeyay waxay sheegayeen kooxda ciidanka ee qaybta ka qayb galay dagaalka ay xitaa kamid yihiin ciidamada sida weyn u ilaaliya madaxtooyada dalkaasi ee commandowista ayadoo la sheegay in cadab baahsan oo shacabka ka dhalatay ay sahashay in kooxdaasi awood lagu muquunayo hase yeeshee xeeldeere dhinaca arrimaha militariga oo kasoo jeeda dalka Benin ayaa ka digay in kooxda Boko Haram aysan dhamaanin wuxuuna ku tilmaamay kooxda Boko Haram oo mar walba iyadu beegsata goobaha militariga ee dalalka ay kamid yihiin Chad Niger dalka la yiraahdo Nigeria iyo dalal kale ay wali si tur leedahay hase yeeshee waxa uu qiray in uu ku dhacay jab aad u weyn marka loo eego talaabada uu qaaday Idris Deby iyo ciidankiisa wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in dalal badan oo reer markaasi Afrika ah oo dalalka dagaalka kula jira Boko Haram ay haatan yididilo weyn ay ka qaadeen in kooxda laga adkaa karo kadib khasaaraha lixaad kale ee ay gaarsiisay Chad ayaa leeyahay halka nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda daawada farkama qodna wararka waaweyn iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda taalka wararka daawada shaqsimaha aan dib ugu noqono ee dalka Turkiga ayaa waxa asaguna uu helay dalabkii ugu weynaa ee dalka Mareykanka uga yimaada ku saabsan
qalabka caafimaadka haday tahay qalabka lagu iskaga difaaco xanuunka ka wax lagu qalo iyo waliba qalab kale oo markaas muhiim u ah in laga haatan lagula tacaalo dadka reer Mareykan ee xanuunku u soo daadinayo dawladda dalka Turkiga oo safaaradeeda ay ku leedahay magaalada Washington ayaa waxa ay sheegtay in ay heshay dalabkii ugu badnaa ee hal dawladda ay ka dalbato kaasoo ah qalabkii ugu badnaa waxa qalabkaas ugu daran ayaa la yiri qalabka horta marka hore la isku difaaco kamid yihiin kuwa gacmaha la gashado kuwa jirka lagu wada qariyo kuwa indhaha la galiye ee muraayadaha dhaqaatiirtu wax ku qalaan qalabka neefsashada loogu talagalay ee dadka lagu neefsiiyo telefoonada u samaysan qaabka markaas lagu qaado waxa loo yaqaan khashaafada degdega ama x-ray ee markaas dadka lagu fiiriyo laabtooda iyo waxa la yiri alaabaha kale ee alcoholka laga soo biyo ee markaas tirtira ama dila jeermiska taasoo la sheegay in dhamaantood ay ahaayeen kuwa aad iyo aad u fara badan safaaraddu waxay sheegtay iyadoo oo wargeyska leeyahay xorriyad daily ee ka soo baxay dalkaas Turkiga uu soo xigtay qoraalka soo gaaray safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Turkiga ku leeyahay Mareykanka in waaxda la yiraahdo waaxda markaas alaabaha muhiimka ah ee strategic national stockpile ee dalka Mareykanka ay soo dalbatay ay tahay Tripel wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa goor hore sheegtay in ay diyaar u tahay in Mareykanka ka caawiso alaabaha haatan ku noqday markaas lafta dhuunta gashay ee waayeen baco saabuun alaabaha wajiga lagu jeebto sariiraha galoofyada la gashado gacmaha iyo dhamaan qalabka wax lagu eego lagu suubiyo waliba dheecaanka lagu qaado oxygenka ama dadka afka laga xidhin neefsashada degdega siiya kabaha loogu talagalay in wax lagu qalo dhamaan alaabahaas oo dhan waxay noqdeen kuwo aan tiradooda hadeerta la garanaynin ayaa la yiri laakiin dawladda dalka Turkiga ayaa sheegtay in ay ku amartay wasaaradda tiknoolajiyadda dalkaasi in sida wasaaradda warshadaha iyo tiknoolajiyadda ayaa la yiri dalkaasi Turkiga in sida ugu dhaqsaha badan ay u dadejiso alaabahaas markaasi si dalka Mareykanka loogu gudbi lahaa iyadoo la sheegay in goor horba dawladda dalka Mareykanka ay lacagtii oo cash soo shubtay dhanka kalena dawladda dalka Turkiga waxay sheegtay in 32 dal oo dunida ka tirsan ay gaarsiisay deeq halka marka la isku daro dalalka ay qalabka gaarsiisay marka deeq iyo la isku darana ay 93 gaarayaan dalalka Italia, Spain iyo Iran ayaa ugu dambeeyay dalalkii ugu dambeeyay shixnado alaabaha ay Turkigu gaarsiiyo ayaa leeyahay halkan nagala socotaan daawadayaal wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan gaanka dunida oo dhan daawadayaal iyo wararkii ugu dambeeyay daawadayaal ee ayaduna hay'adda lacagta adduunka ee IMF oo bishii January uu soo saartay hilaad iyo daras ay ka bixisay sida uu noqon karo dhaqaalaha adduunka ee sanadka 2020 kuna tilmaantay in kor u kaca ama kobaca dhaqaalaha adduunka uu kor u kici doono 3.4 guud ahaan iyo boqolkiiba waxa la yiri 3.3 uu noqon karo ayaa la yiri 2022 ayaa arintaasi wax ka bedeshay waxaana sheegtay in daraskii bishii koobaad ee sanadkan ay soo bisay gabi ahaanba uu ka kacyahay maadaama xanuunkan aan la ogeyn uu soo baxay gabadha hay'adaasi gudoomisa ayaa waxa ay sheegtay in dunidu ay u baahan tahay inay ku baraarugto khatar weyn oo ka soo socota Kristalina Georgieva oo hay'adda The International Monetary Fund madaxka waxay tiri waxa aan doonayaa inaan adduunka idin sheego in uu isku bedelay sidii kale oo sidii markii hore aan filaynay uu isku bedelay oo ahayd in ay dhaqaalaha 2020 uu kor u kacayo dalalka oo dhan laakiin kobaca dhaqaalaha haatan bedelkeedu uu noqon doono hoos u dhac weyn waxay tiri 170 dal oo kamid ah 180 dal ee xubnaha ka IMF ayaa dhibaato weyn soo gaarsa ama dhaqaale darradu ay saameynaysaa 170 toban bay saameynayna ayay tiri 180 dal ee hay'adda IMF markaasi ku jira waxaan rabnaa ayay tiri in aan fiiriyo oo idin sheego ilaa iyo waqtigiis xiriirka waa sanadihii 1930 markii dunida dhaqaale darradii ugu weynayd ka dhacday wixii loo yaqaan Great Depression xilligaas xiriirka la yiraahdo ama xiriirkii weynaa ayaa waxay tiri waxay tan noqon doontaa mid kale oo markaasi la mid ah waxaana xanuunkan uu inagu sameeyo doona ayay tiri kaliya ma habay tiri in uu dhibaato u geysan doono nolosha dadka laakiin waxa ay dhimaca waxay ka hadlaysaa nolosha qofka inuu noolaado laakiin waxay tiri xataa inuu qofku dhaqaalahiisu uu sii jiro ayaa noqonaysa mid adag ayay tiri waxay sheegtay in inkastoo dawladuhu qaarkood ay ansixiyeen 8 trilyan oo lacagta dollarka Mareykanka gaar ahaan 20 dal ee dunida ugu tutudharoon laakiin waxay sheegtay in ilaa iyo hadeerta lacagta sida loo gaarsiinayo dalalka u nugul in dhaqaalahoodu uu burburo aysan kala cadayn waxay ku talisay in dalalka dhaqaalahoodu uu burburi karo la gaarsiiyo deeq iyo deyn wixii loo heli karaba si ay uga adkaystaan xanuunka iyo dharbaaxooyinka dhinaca dhaqaale
ee xanuunkan la dhacayo halka nagala socotan waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal iyadoo Mareykankuna uu ku cagajugleynayay aanad ogeydeen inuu aad iyo aad ugu cagajugleynayay maalmihii ugu dambeysay oo dhan inuu dalalka Russia iyo dalka Saudi Arabia labadaba uu cunaqabatayn iyo cadaadis xad dhaaf ah oo ku saabsan cashuuro la saaro uu ku soo rogi doono haddii aysan dejin suuqa saliidda caalamka ayaa ugu dambeyntii waxa ay ku dhawaaqeen wasiirada tabarta ee labada dal ee boqortooyada Saudi Arabia iyo dalka Russia in heshiiyeen خط تليفون oo yeesheen maqal muuqaala ayaa ugu dambeyntii dalalka loo yaqaano OPEC Plus OPEC oo dalalka Sacuudiga ugu turturoon yahay Plus oo Turkiga iyo dalalka Ruushka iyo dalalka loo jeedo ayaa waxa ay sheegeen in ay haatan isku raaceen inay gooyaan 10 milyan oo foosto maalintiiba taasoo ka dhigan 10% saliidda dunida oo dhan waxaana ku baaqeen dalalka uu Mareykanku ka mid yahay iyaguna wax soo saarka iyo kaydka saliidda leh inay ku soo biiraan qorshaha marka ay noqoto in ay arintaas hirgasho horaanta bisha ama kowda bisha May ayaa leeyahay war qoraal ay soo saareen ayaa waxay sheegeen in ay hoos u soo dhigi karaan taas haddii ay sii socoto ayaa leeyahay qiimo dhaca saliid waxaana gaarsiin karaan 15 milyan oo foosto halkii maalinba in la jaro oo ka dhigan markaasi in suuqa la fariisiyo saliidana qiimaheeda kor loo qaado shidaalka ayaa qiimihiisu burburay tan iyo sanadkii 1990 markii Saddam Hussein weerarka ku qaaday dalka Kuwait ayaana ay ahayd xilligii uu saasoo kale u baaba'o boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud iyo madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka isweydaarsaday isla markaana ku heshiiyay arinta kadibna waxa lagu dhaqaaqay shir degdeg ah oo ay wasiiradu soo wada fariisteen dhinaca la taliyaha sare ee arrimaha u qaabilsan wada hadallada saliidda iyo qiimaheeda dalka aqalkaasi Kremlin ee dalka Russia Kirill Dmitriev ayaa Reuters u sheegay in wada hadalladu ay ahaayeen kuwo markii hore la filayay laakiin waxa jiray ayuu yiri in ay dawladda Sacuudiga ay ka gaban gaabsanaysay cadaadiska Washington ayaa jilbaha dhulka ugu dhuftay Sacuudiga ugu dambeyntii isla markaana gol fariisiyay sida ay sheegayaan warbaahinta reer galbeedka ee ka warrama saqatiyada halka nagala socotaan daawadayaal waa warfan media daawasha qiimaha leh falanqeyn xooggan ayaan ku qaada dhigi doonaa faragelinta dalalka Carbeed iyo waliba dhibaatooyinka caalam islaam ishaynta dalalka caalam islaam inay isdili karaan dalalku Saudi Arabia iyo doorkiisa oo caalamka ku lahaa Imaaraadka Carabta iyo doorarkiisa oo ku leeyahay tusaale ahaan Somaliland iyo Puntland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ee xamar arrimihii ka sameeyay qadar lafteedu maxay rabtaa waase maxay faragelimihii ay sameeyeen dalalkan kale ku sameeyeen wixii ka dhashay arrimahaas oo dhan oo daris iyo warbixin la yaab leh ayaad ku maqli doontaan deebayd ma daawadayaal qodobkan aan ku soo afgooyay ayadoo Mareykanka aad ogtihiin inuu noqday dalka xudunta u noqday dadka ugu badan inuu ku soo rito xanuunka haatana dhimashadiisu ay 18,000 cageenaso dadka uu soo ritayna ay kor u dhaaftay 400,000 oo ruux magaalada New Yorkna ay noqotay magaalada xudunta u ah marka la eego dalka Mareykanka ama gobolka xudunta u ah dalka Mareykanka ka tago gobolka kooban dhibaatooyinka soo ridashada xanuunka ayaa markii ugu horeysay waxa dhaqaatiirta sarsare iyo saynis yahanada dalka Mareykanka ee ayagu had iyo habeenba warbaahinta la hadla ay sheegayaan in xanuunkan hubka ugu weyn ee laga hortagi karo ay tahay in dadku kala yaacaan Dr. Anthony Fauci oo asagu caan ku ah in uu yahay dhakhtarka ugu sareeya maxadka cilmiga dhinaca xanuunada ka hortagga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka ee heer qaran ee The National Institute of Allergy and Infectious Diseases ayaa waxa uu yiri waxaan rabnaa inaan idin sheego ayuu yiri dadkii aynu kala xayndaamnay isla markaana aynu kala cayrinay kala xayirnay arrimihii kala xayiraad ma shaqeynayaan ee bulshada kala irdhaynta ha ayuu yiri waayo waxaad ka garanaysaa ayuu yiri dadka cusbitaalada la dhigayo waa ay hoos bay u dhaceen ayuu yiri aad bayna hoos ugu dhaceen taasna waxa u muuqata in shaqada aynu qabanay ay shaqeynayso ayuu yiri wuxuu yiri waxa loo baahan yahay tan in la sii wado tan iyo inta wax kala cadaanayaan Dr. Robert Redfield oo asaguna ah dagaasimaha guud ee hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada faafa ee the US Centers for Disease Control and Prevention ayaa asaguna waxa uu yiri hubka ugu weyn ee ugu culus ma taqaanaa ayuu yiri ee laga hortagi karo xanuunkan aan la arkaynin iyo cadawgan baahsan ayuu yiri waa kala fogaanshaha iyo kala fogeynta iyo dadka haddaba daawada qiimaha leh halka inagu ka eegna Soomaaliya ayaa laga baqayaa in uu xanuunku aad uga qarxo waxaana taas walaaca u sheegayaan warar horfar media ka helayso magaalada Muqdisho ayaa sheegayaan in dad badan xanuunkaasi soo ritay laakiin aan la garanayn horfar media saddexdii bilood ugu dambeysay waxay qayladaan u direysay cid walba arintaas khusayso iyo in kala fogaanshaha gacmo dhaqista iyo waliba kala durugga dadku ay muhiim tahay masaajidada ayaa wali furan sidoo kale gawaadhida ayaa la wada raacaya dadkuna qaar waxay isugu imaanayaan meelaha ay kamid tahay xeebta liida kamid tahay mana aho kaliya magaalada Muqdisho laakiin dhammaan magaalooyinka dalka oo dhan iyo dhammaan
deegaanada oo dhan ayaa saas ay ka soconaysaa iyadoo dadku is dhex jiirayaan isla markaana is dhex qaadayaan ugu dambeyntiina waxaa jiray xataa in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish uu dhawaan sheegay in dad badan oo isaga u garanaya xitaa xanuunka ay dhinteen dawladda ayaa ilaa hadeerto aan olole isku xidhan ku qaadin arrinta sidoo kale waxaa jira qayl dhaamo ka soo baxaya cisbitaallo ay kamid yihiin cisbitaalka Banaadir oo la sheegay in ruux aan wadanka weligii ka tagin halkaasi uu la dhigay kadibna markii dambe ku geeriyooday cisbitaalka la yiraahdo Martini inta ku jirta dawadha qiimaha leh qodobada kale falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daqiiqadeyn daawadayaal